Good, heads up. Now, there is no any country willing to come here. That's why we want to go to Ethiopia to have international friendly games so that they can get that experience before Niger. I think after those games, they will gain something. Then we go to the game. waxaan ku guuleysana hadda insha Allah in qarankii horanta bisha September ay baxaan laguna xareyn doono dalka Ethiopia magaalada Addis Ababa halkaas ay joogi doonaan muddo bil ah ee ka badan ay halkaas dab ku sameeyaan ayadoo muhiimadu ay tahay in cimiladaas la qabsadaan meesha ay ku ciyaarayaan isla markaasna ay motivationka ama dhiirigelinta ciyaartooyda inay ka mid tahay meel wadanka ka baxsan inay xero ku helaan sida qaramada kale ay Suubiyaan oo kale sida qaramada kale ay Suubiyaan xeradaas marka waxay ku jiri doonaan bil ciyaarta koowaadna oo aan home ka nahayna waxaan ku ciyaari doonaa oo ayadana aan helnay macnaha ogolaashaheeda aan helnay inaan Addis Ababa ku ciyaarno dalka aan la ciyaari doono waa dalka Niger ayaan la ciyaari doonaa haddii Ilaahay raado ku aadan 9 bisha October inaan halkaas ku ciyaarno ciyaarta labaadna aan ku ciyaari doono dalka Niger Miami oo ku aadan 13 bisha حرنا دولا كران لخودن كين إنن هرمر أنجارسينو أما wax lagu farxay aan taabsino doolaa karaan laqdo anagana magac iyo sumcad iyo sharaf inaa u yeeshano inaa wadankeena Niger aan ka badino aan Cameroon aan ka badino taariikh aan sameysano oo qualifying aan tagno doolaa karaan